munaasabad baroodiiqa oo ay soo qabanqaabiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo waliba ehelada iyo qaraabada fanaankii weynaa maxamed Saleebaan Tubeec oo isagu toddobaadkan ku geeriyooday wadankaasi Jarmalka ayaa waxa lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta munaasabadaasi oo loogu hadlayay si diyaar garowga aaska marxuumka iyo waliba taariikhdii dheeraa ee uu ku lahaa dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba dadka ku hadla af Soomaaliga waxaana munaasabadaasi si kala duwan uga hadlay qaar kamid ah ehelada qaraabada mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ugu horeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka waxa sidoo kale ka hadlay qaar kamid ah salaadiinta boqorada iyo waliba ehelada qaaska ah kuwaas oo ay ku jireen qaar uu ahaa fanaanku awowayaal iyo waliba qaar uu sidoo kale u ahaa ehelkiisa qaaska ama ka soo jeeday magaciisa oo ka mid ahaa wiil uu isagu dhalay waxaanay dhamaantood Ilaahay uga bariyeen inuu naxariistii janno oo geeyo marxuumkaasi waxaana sidoo kale tacsidaasi u direen dadka iyagu ku hadla af Soomaaliga oo ay ka tacsiyadeeyeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timi abwaankii gaar ahaan ka soo jeeday dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed Saleebaan Tubeec gaar ahaan reer Soomaaliland oo ka baxay marxuum maxamed Saleebaan Tubeec Ilaahay isagana waxaan uga baryaynaa inuu dambi dhaafo jannadiisina ka waraabiyo inta kadib waxaan halkan u joognaa inaynu ku dhawaaqno xukuumad ahaan in meedka marxuumka xukuumaddu ay go'aansatay in lagu aaso magaaladii ku dhashay Berbera iyadoo la raacayo marka dhalashada laga tago dardaarankiisii oo ku dardaarmay in magaalada ku dhashay lagu aaso kadibna ay go'aansadeen ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ka tagay oo awal halkan laga fadhiyaan xaaskiisii Khadiija Ismaaciil caruurihii awowga ahaa salaadiintii iyo boqoradii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii beesha qaybaha kala duwan ee bahda warfaafinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa caalamkuba iyagu ay ka wada hadlayeen rag ay wada shaqeyn jireen qaar iyagu waxa macallin baa waxa dad wada noolaayeen hadda si kooban hadaba anagoo arinta halkan aan u fadhinaa ay tahay taasidiisii iyo sidii Soomaaliland loogu aasi lahaa aan si kooban uga warramo maxamed Saleebaan Tubeec ilaahay naxariistiisa ka waraabiye waxa uu dhashay sanadku markuu 1941 isagoo ku dhashay degmada Berbera gobolka Saaxil tuulo ku taalo leeyahay Laalis محمد وحوها إلهي نحريش لها كورابية بقول كي عدك فنان عدك اللوغة وظهري وأي أمضى جمهورية الصومال لاند أنت أف صوماليا كوها الشعباء أي تاجك عدك السيسيبوها وحن لا يهي إلهي نحريش لها كورابية إيضا سمري من الله كسيو سيدي فنانينتي هوري كارية اسمان محمد كل انتي دمتي أردن سيدي لوغو آسي آسقرن إن محمد سليبان اللوغو آسو سببتها محمد سليبان موادي الصومالي لانا وبهذا فنكا يسوقان Soomaaliland ay horkacayaan in la ballan qaado meesha ku dhashay in lagu aaso iyadoo dalka Jarmalka laga soo qaadayo xukuumadda Soomaaliland ay cadeysay mowqifkeeda ku aadan muwaadinka reer Soomaaliland ee Soomaalina magaca ku lahaa sharaf bay u tahay qaranka iyo qiimihiisaba odayaasha ka hawlgalay ee xoog uga shaqeeya boqorka iyo salaadiinta iyo عائلته بكبدهين ونقول ما هذا عنينا دولة Soomaaliland waxay kale u sameysay aas qaran oo wanaagsan gaariye waana ku mahadinaynaa anigu baahda fanaaniinta kamid ah qoyska oo ka dhashay maxamed Saleebaan waxaan kale halkan ka mahadinayaa wasiir ku-xigeenka Cabdiwaaxid iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda uu hogaaminayo Axmed Maxamed Siraayo oo iyagu markasta hiil iyo hooga la garab taagan beeshan aan ku soo jeedin ilaahay wada naxariisna ilaahay ka waraabiyo wuxuu tu dhashay Laalis Berbera uu soo toray waxa weeyaan meel kale uu tu dardaarmay in lagu aaso Berbera geerida naxdinta ee ku timid aabahayo maxamed Saleebaan Tubeec anigoo ka tacsiideynaya reer maxamed Saleebaan Tubeec oo dhan halkan kalena waxaan uga soo jeedinayaa dawladda Soomaaliland sida fiican ee sharafta leh ee maamuuska leh ay noola qaateen inay u sameeyaan aas qaran